سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودايال كسو دوادا برنامج كني عيارها او انكو قادا ديجدون نقودا بااد وحيسا بدان سيدا ليونيل ميسي oo qirtay in uu ka shakinayo in Neymar uu wada xaajoodiye la galay kooxda Real Madrid Massimiliano Allegri oo culayska ku sii padiyay maamulka Manchester United isla markaana u sheegay in ay dedejiyaan hogaamintiisa kooxda lagu naanayso shiyadintu casas waxa kale oo barnaamijkeena aad ku daawan doontaan kooxda Bianconeri oo kor u qaaday qorshaha ay ku doonayso Paul Pogba BK oo la weydiiyay su'aal adag oo noqonaysa miyaad xiratay maaliyadda Real Madrid muxuu ku jawaabay xidigaha xulka qaranka Ingiriiska oo ballan wada galay ka hor inta aysan ciyaarin kulamada soo aadan macallin Jose Mourinho oo dib ugu soo laaban kara xilkiisa macallinnimo iyo koox Premier League ah u doonayo qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan inta uu wada ka baxayo ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka hana naga iloobin inaad laag saarto muuqaalkan mahadsanid halkani waa Tulito Channel aan ku bilaabane il capitano Lionel Messi ayaa wuxuu aad kaga fikirayaa sababihii ka dambeeyay in laacibka ay sida weyn u jecel yihiin ee Neymar Jr uu ka mid noqon waayo kooxda Barcelona xagaagii dhawaa waxaana uu u malaynayaa in dhinac kasteetaba wada xaajood uu la galay kooxda Real Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain taasi oo ah mid si weyn ula xifaaltanta kooxda ku ciyaarta fagaarihii weynaa ee Camp Nou il capitano Messi oo ka hadlayna waxa uu yiri isaga wuxuu si dhab ah u doonayaa inuu isaga baxo kooxda Paris Saint-Germain waana soo bandhigay waxaan u malaynayaa Florentino Perez iyo kooxda uu hogaamiyo ee Real Madrid ay doonayaan in ay sameeyaan wax ay kula soo saxiixdaan xidiga reer Brazil oo dhinac kasteetaba Lionel Messi ayaa cadeeyay jacaylka uu u qabo Neymar Jr in mar kale uu ka garab ciyaaro hase yeeshee weli wuxuu ka shakinayaa in kooxda Real Madrid ay ka afduuban karto laacibka reer Brazil ee Neymar Jr kooxda Barcelona dhigooda Los Blancos oo xifaaltan iyo dagaal adag uu kala dhaxeeyo marka la eegana Real weerarkeeda waa mid aan sidaasi u qurux badnayn waana u baahan tahay in ay hesho mid la mida Neymar Jr qirashada Lionel Messi ayaana u sii sahlaysa in kooxda Real Madrid sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu dhaqaaqdo laacibka reer Brazil oo isagana la ciishon sidii uu kaga tagi lahaa garoonka Parc des Princes ee ku yaala cariga Faransiiska dhinaca kale ciyaartooyda xulka qaranka Ingiriiska iyagana waxay qaateen go'aan aad u adag oo noqonaya haddii la cunsuriyo mid ka mid ah ciyaartooydooda in gabi ahaanba ay isaga bixi doonaan istaadiyaha ay ka dhacayso ciyaarta xulka lagu naanayso saddexda libaax ayaa wajihi doona qaramada Czech Republic iyo sidoo kale Bulgaria muddo 4 maalmood gudahood waxaana go'aan adag oo wada jir ah ay qaateen in gabi ahaanba garoonka ay isaga bixi doonaan haddii cunsuriyad uu la kulmo mid ka mid ah ciyaartooydooda waxaana hadalkaasi ka hor qiray ciyaartooyda il capitano Harry Kane iyaga oo jooga xirada tababarka ee St George horaanta sanadkan ayay ahayd markii taageerayaasha xulka qaranka Montenegro ay aflagaada u geysteen qayb ka mid ah ciyaartooyda madowga ah ee kala ah Danny Rose Raheem Sterling iyo Callum Hudson-Odoi balse markaasi wax go'aan ah kama aysan qaadan walow hadda la sugayo waxa ay samayn doonaan haddii aflagaado ay kala kulmaan xulalka Czech Republic iyo sidoo kale Bulgaria sidoo kale tababaraha xulka qaranka Ingiriiska ee Gareth Southgate ayaa isagana waxa uu tilmaamay in dhinac kasteetaba la raaco shuruucda UEFA isla markaana lala wadaago haddii garoonka dhexdiisa ah wax raaxo ah ay ku dareemi waayaan halka Tammy Abrahamna uu qirtay in dhinac kasteetaba Harry Kane uu u sheegay haddii garoonka farxad uu ku dareemi waayo isla markaana loo geysto aflagaado in gabi ahaanba garoonka ay isaga wada bixi doonaan taasi oo dhiirigelin u noqonaysa qayb ka mid ah ciyaartooyda madowga ah ee qaatay jinsiyadda Ingiriiska kuwaasi oo inta badan faquuq la kulma dhinaca kale
tababaraha shanta jeer ee xiriirka ah ku hogaamiyey ku guulaysiga horyaalka Serie A Talyaaniga kooxda Bianconeri ayaa waqti xaadirka kan waxaa si weyn loola xiriirinayaa hogaaminta kooxda Manchester United oo noqotay koox uu daadka guuldarada qaaday, waxaana loo arkaa inuu yahay bedelka ugu habboon ee macalin Ole Gunnar Solskjaer. Massimiliano Allegri isagana dhinac kasteetaba wuxuu ku wargeliyey maamulka Manchester United go'aankiisii ugu dambeeyey sida ay sheegtay jariirada Gazzetta dello Sport, waxaana uu tilmaamay in uu doonayo hogaaminta United in loogu dhawaaqo sida ugu dhaqsiyaha badan haddii waqti fog ay qaadatana. wuxuu tilmaamay in dhinac kasteetaba uu beeca kaga bixi doono isla markaana uusan rabin hogaaminta kooxda ka dhisan maslaxadda riyada ee Old Trafford. dhinac kasteetaba marka la fiiriyo macalin Massimiliano Allegri ayaa ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan xagga qaaradda Yurub, waana nuuc ay u baahan tahay kooxda United, inkastoo dhammaan jamaahiirta United-ka dhinac kasteetaba ay ka soo horjeesteen waqti xaadirka kan macalin Ole Gunnar Solskjaer oo noqday nin diris la noqday xagga guuldarada. agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Lille isna dhinac kasteetaba wuxuu tilmaamay in Arsenal nasiibka uu saaciday isla markaana ay heshay xidig laheer ah Kylian Mbappe iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo oo kamida ciyaartooyda ugu halista badan qaaradda Yurub, kaasi oo noqonaya Nicolas Pepe. inkastoo ilaa iyo haatan uusan soo bandhigin qabceereed aad u qurux badan oo soo jiita qulubta jamaahiirta Arsenal, haddana waa nin ay ku duugan tahay farsamo aad u badan. Luis Campos oo ah agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Lille ayaana wuxuu leeyahay fikir ahaantayda waa mid ka mid ah shakhsiyadaasi isla markaana si weyn u jecel kubadda cagta, wax waliba ayuu ka garanayaa kubadda cagta. wuxuu sheekada ka wadaa laacibka la yiraahdo Nicolas Pepe oo haatan qaati ay ka taagan yihiin jamaahiirta Arsenal, wuxuuna intaasi ku sii daray waxaan xasuustaa la shaqaynta Cristiano Ronaldo iyo Nicolas Pepe, waxay mar waliba garanayeen kubadda cagta. Kylian Mbappe wuxuu garanayaa dhammaan natiijooyinka heerka labaad ee Faransiiska. Nicolas Pepe waa sidaas oo kale, waana tusaale kale xidig kale oo jecel kubadda cagta. dhinac kasteetaba Luis Campos ayaa tilmaamay in Nicolas Pepe uu yahay xidig laheer ah Cristiano Ronaldo iyo Kylian Mbappe oo ka mid ah weeraryahanada ugu khatarta badan qaaradda Yurub, waxaana uu sheegay in fursad galgacayl ay siiyaan jamaahiirta Arsenal isla markaana uu sameeyo isagana dib u soo laabasho wacan oo wanaagsan. geesta kale tababarihii hore ee kooxaha Chelsea iyo Manchester United Jose Mourinho ayaa waqti xaadirka kan wuxuu diyaar u yahay in shaqada tababarnimo uu ka bedelo tababaraha kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa cadaadiskiisa sii kordhaya waqti xaadirka kan ka gadal markii kooxda ay ku bilaabatay qaab ciyaareed aan sidaasi u qurux badnayn marka la eego tartamada oo dhan. wargeyska Daily Mail ayaana sheegaya in tababare Jose Mourinho uu isha ku hayo shaqada tababarnimo ee kooxda Tottenham ee ka dhisan waqooyiga London. Mourinho ayaa bilaa shaqo ah tan iyo markii laga ceyriyay shaqada kooxda Manchester United xilli ciyaareedkii hore. tababaraha reer Portugal ayaana ka fiirsanaya dooqiisa isagoona iska diiday shaqooyin badan oo loo soo bandhigay xilli shaqada Tottenham uu u arko mid u fiican isaga, waana doonaya hogaaminta kooxda Hotspurska. geesta kale laacibka difaaca ugu ciyaara kooxda Barcelona ee Gerard Piqué isla markaana lagu tilmaamo inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka ee kooxda Blaugrana ayaa la weydiiyey su'aal aad u adkayd oo noqonaysay weliga miyaad xiratay maaliyadda kooxda Real Madrid. hase yeeshee isagoo qoslaya ayuu ka bixiyey jawaab aad u xadaarad badan, taasi oo noqonaysa maya weligay ma xiran sababtoo ah xasaasiyadda, ayuuna u sheegay wariyaha daadihinayay barnaamijka oo dhinac kasteetaba ku kediyey su'aashan ahayd in uu xirtay maaliyadda Real Madrid oo si weyn ay u xifaaltamaan kooxda Barcelona. hase yeeshee jawaabtiisu degdega waxay noqotay maya oo la micno ah in dhinac kasteetaba uusan arki karin reer Real Madrid. ugu dambeyntii
weli waxaa taagan sheekada mustaqbalka laacibka reer faransa ee Paul Pogba. kooxda Juventus ayaana waxaa la soo warinayaa in waqti xaadirka kan ay u degsatay qorshe baaxad weyn oo ay ku qancinayso kooxda Manchester United, waxaana diyaar ay u tahay inay u soo bandhigto qayb ka mid ah xidigahooda kuwaasi oo kala noqonaya Neymar iyo sidoo kale Mario Mandzukic suuqa January ee soo aadan. inkastoo laacibka reer faransa ay aad u doonayso kooxda Real Madrid, haddana waxaa muuqanaysa kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga ee Juventus in ay u baahan tahay in mar kale dib ay ugu soo celiso horyaalka Serie A Talyaaniga, xidiga ku qaatay muddada 4 sannadood isla markaana 2016 dib ugu laabtay kooxda Manchester United, kaasi oo noqday mid ka mid ah xidigaha ugu qaalisan caalamkan. wargeyska ayaana sheegaya in kooxda Juventus ay diyaar u tahay in dalabkeeda ay ku darto Neymar iyo Mario Mandzukic si ay u helaan Paul Pogba oo dagaal adag ay kala kulmayaan kooxda Real Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain. guud ahaan barnaamijkan ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. saaxiibayaal waa naga inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah.